waxa uu galaaftay nafaha in ka badan 10 milyan oo qof ilaa 15 milyan oo qof. Cadadaas ayaa lagu qiyaasaa inta u dhimatay inta xulka hayay ninkan aan maanta inii wada sheekadiisa. haddaba waxaan wada ognahay ninka Hitler lagu magacaabo inuu dilay isna 6 milyan inta lagu qiyaaso, laakiin 6 milyan uu dilay ay yihiin Yahuud, taas oo sababatay in aynu silmiska iskuuladeena historyga aynu ku dhigano noogu soo tara taariikhda Hitler. maxaasay naga galay inaga oo Afrikaan taariikhda aynu dhigano aynu ogaaweyna taariikhdan madow ee ku dhacday dalkan Congo ee ku yaala Afrika, laguna galaaftay nafaha in ka badan 10 milyan oo qof ilaa 15 milyan oo qof. cadadaas intaa leh waxaynu ogaan weynay sababta ayaan idin sheegayaa aynu ogaan weynay in cadada intaa leh aan la buunbuunin aan adduunkana lagu hadalhay, sababtoo ah waa dad madow oo qalbada ka madow oo Afrikaan oo cidba marka horeba aan tirsanayn, laakiin 6 milyan ee Hitler uu dilay meel walba inaga soo horsaaray. haddaba maanta waxaan idin wadaa ninka gumaadka intaa leegeystay taariikhdiisa ee arxanka darnaa ee soo maray ee dalka Kongana ay iloobin marnaba noloshooda uu jiilba jiilka ka dambeeyna ka sii dhaxlo ee ku soo dhawaada. haddaba muuqaalkeena maanta waxa uu ka hadlayaa taariikh aad iyo aad u xanuun badan ee isla socod wanaagsan insha Allah ilaa dhamaysana muuqaalka. Avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission. ninkan ayaa lagu magacaabi jiray Leopold II. waxa uu ku dhashay dalka Belgium sanadii markay ahayd 1835 bishii Abriil 9keegii. ninkan ayaa waxa la leeyahay waxa uu baqtiyay 1909. haddaba ninkan ayaa waxa uu dalka Belgium xukumayay 44 sanadood. ninkan ayaa waxa uu dhaxalka kala wareegay aabihii oo ahaa Leopold I 1865. ninkan markuu xilka la wareegay sanadadii ugu horeysayba waxa uu biloobay dhaqaaqiisii activity-nimne ee dhanka dhaqaalaha. ninkan ayaa markuu xilka saa ula wareegaba waxa uu biloobay dhaqaaqiisii dhanka dhaqaalaha, waayo ninkan aad ayuu ugu fiicnaa qaybta dhaqaalaha iyo economical financial-kaba aad ayuu ugu fiicnaa qaybtaas. ninkan ayaa waxa uu raadin jiray maalgashiyo dibadeed iyo maalgashiyo gudaheeba, isagoo dalkiisana xoogga saari jiray inuu maalgashiyo ballaaran helo. haddaba ninkan ayaa waxa uu sameeyey markay ahayd taariikhda 1876 ayaa waxa uu biloobay inuu xoogga saaro gumaystahani inuu xoogga saaro dalka ku yaala qaaradda Afrika ee Congo, inuu gumaysi ku soo duulo. waayo dalka Congo waxa uu aad ugu qani ahaa ganacsiga dahabka qaybihiisa kala duwan iyo foolka maroodiga, inkastoo xataa dhulkiisa loo isticmaali jiray beerashada. haddaba ninkan ayaa halkaa waxa uu ka dhex arkay fursad aad u qaaliya, waayo waxaanu aad ugu xisaabtami jiray inuu waddankiisa dhaqaale badan uu soo geliyo. haddaba markay ahayd taariikhdu 1885 ayaa waxa uu sameeyey inuu qasab iyo xoog uu ku qabsado dalka Congo. uu gumaysayaashiisii ciidamadii dhammaan dadkii meesha joogay ee uu haystay uu halkaa u guuriyo, uu maamulkaana sidaa gacanta ugu dhigo. nasiib wanaag haddaba ninkani gacanta ayuu ku dhigay dalkii Congo, wayna hoos iman jireen. ninka sidii caadiga ahay gumaystayaashu samayn jireen waa uu gumaystay, dhaqankooda wuu la dagaalamay, diintooda wuu la dagaalamay. dad badan xataa waxa la sheegayaa inuu soo gaalaysiiyey oo uu ku daray diinta Christianity-ga. dad halkaa markuu hawshiisii ka waday uu muddo intaa uu ku waday ayaa waxa uu sameeyey silmiskii uu waday buu bedelay. sanadu markay ahayd 1890 ilaa intii u dhaxaysay 1891 waxa uu biloobay inuu u adeegsado dhammaan shacabka dalka Congo inuu ku sameeyo gumaysi ayna marna filanayn. waxa uu gumaysanayay dhammaan shacabka isagoo u diray shaqooyin adag. shaqooyinkaas oo uu ku jiraan waxa uu la dhici jiray jeeda, qaarna wuxuu ku toogan jiray hortooda. ninka dhaqdhaqaaq yar sameeyay gumaysiga Israa'iil ka soo horjeedsana inta isagoo family-giisa la hor keeno ayaa family-giisa lagu hortoogan jiray. intaan waliba la toogan waxa sii dhici jirtay in xubnihiisa isagoo taagan la jaro. haddaba taariikhdu markay ahayd 1892 ilaa 1894 labadaas sanadood waxa uu sameeyey ciqaabihii ugu adkaa iyo jirdirkii ugu arxanka darnaa iyo masiibadii ugu badnayd ee dalka Congo ku dhacdo. ninkan haysta ee Leopold II generaalka ciidanka soo diray ayaa waxa uu yidhi waxaan doonayaa intaasoo kun oo gamcood in la keeno. waxa la soo ururiyay shacabkii dalka Congo, waliba dhalinyartii, iyadoo loo eegan jirin dhalinyar baa ma waayeel baa ma ayey baa ma awow baa ma ilmo yar baa ma inan baa ma nin baa ma naag baa ma waalay, cid looma kala eegi jirin. wixii bili aadan loo arkaba halkaas la soo istaaji jiray. haddaba inta la soo istaajiyay ayaa gamcuhu inta sidaa loo taxo
ayaa midhmidh gacmooga loo goyn jiray. markaasaa boqorkii ama ninkii meesha haystay ee Leopold II loo horgeyn jiray isagoo odhan jiray gamcihii waa kuwa ah. waxaa la socon jiray shaabuug joogta ah iyo xadhka lala dhici jiray dadka halka ku nool, ilaa dadkii markii dambe ay broor iyo oohin ay ka soo hadhay mooyaane. haddaba ninkan ayaa waxa uu gumaad lagu qiyaasay ilaa 10 milyan oo qof, ilaa 15 milyan inta u dhaxaysa ay u dhinteen jirdilka iyo arxandarada oo halka ka geysanay. ilaa markii dambe tuulooyinkii ay deganaayeen uu gubo, ilaa markii dambe meeshii wixii joogay oo dhanba qalbu sida uu doono uu ku filanay. dhaqaalaha iyo waxa ay xoogooda ku soo saarayaanna waxaa loo wareejin jiray dalka Belgium. haddaba sanadii markii ahayd 1908 ayay mudaharaado waaweyn dalka Belgium laga sameeyey, sidoo kale kacdoonaa laga sameeyey dalka Congo. shacabkii intii harsanayd ba isla midowday ee markii hore gaargaarka loo haystay tan kicitaankaas ayaa waxaa sameeyey in boqorka xilka lagaga tuuro. sanadii ku xigtay ahayd 1909kiina waa uu baktiyey ninkii ugu carxanka darnaa adduunka. haddaba taariikhda waxaa lasii sheegaa inay weli Congo lasii haysay oo lasii gumaysanayay markii ay soo gaadhay 1960kiina ay dalkan Congo noqdeen dal madax bannaan. runtii waa nin taariikhda baalmadow kaga galay dalka Congo, laakiin haddana waxaa la yaab leh oo dunidu la yaabeen maxaa ninka intaasoo nafood galaaftay loo ogaan waayey saliimsada iskuulada ama meelaha loogu soo tiri waayey. midda kale qaaradan weligeed ma sidaas ayay u dhibanayd, maadaama imika inagu nool nahay oo casrigan technology-ga inagu nool nahay. waxaan qaaradan ka socda gumaysi, mar daanyeer lagu tilmaamay, mar la gumaystay, mar qalbad laga caayay, mar ay faqri yihiin iyo mar ay afar hayado isku sawiraan bayn arkaynaa. sanadada ayna noolayna waxa baan arkaynaa dhibaatooyin ku soo dhacay. qaaradani ma waxa u rabaan garaysan tahay dadka cadaanka inay ashaada ka bedelaan. qaaradan anu wallahi ruuxaanta aad ayaan ula yaabay. bal dhowr qodob oo qaaradda Afrika aad kula yaabantahay bal commentiga nagula wadaag. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin la socodkeena, dhiirigelinteena, la jaanqaadkeena. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.